magaca ku bilaabo مالكة جبريل عمر kamid ah hooyooyinka reer Djibouti ee wadankan degan ee gaar ahaan xafladan soo qaban qaabiyay waxaan ognahay in xafladan soo qaban qaabiyeen ururka haweenka Djibouti ee midnimo marka hore sida hawshan aad ku soo bilowdeen waxay nooga taab ها السلام عليكم horta aad baad u mahadsan tahay anigu waxaan ahay hooyo ururka midnimo kamid ah ururka midnimona waxa weeyaan urur aan ugu talagalay dadka maxay ahayd reer Djibouti oo dhan waliba hooyooyinka reer Djibouti say u dhan yihiin dhammaantood urur aan ugu baaqayna weeyaan inay ka soo qayb galaan waxa dhacday bishii hadda dhamaatay bartamaheedii baanu baaq ugu sameynay magaalada Tilburg aad bay uga soo jawaabeen aad bay maxay ahayd ugu mahadnaqayay ugu riyaaqeen ururkii ururkuna waa urur waxqabadkiisu hadda uu socdaa jiro laba jeer baan hadda maxay ahayd wax ka geysanay Djibouti aan u fidinay maxay ahayd mucaawino caruurta agoomaha ah inaan ciidsiino laba jeer ciidii carafi ciidii Ramadaanba haddana maanta waxaan halkan u fadhinaa inaan soo dhaweyn u fidino safiirka waddanada la isku yiraahdo Benelux-ka mudane Umar Siyaad Cabdi inaan soo dhaweyn u fidino haddana isagii baan sugaynaa waad mahadsantahay adiga mudan waxaan wax ka weydiin lahaa warqad waxa ay soo gaartay ku qoran in loogu waalidiinta caruurta reer Djibouti ee xaggan ku kortay wax ku baratay la rabo in dalkii ay shaqo waxbarasho ahaan ay ku soo sameeyaan ridaas sidee aragtidaadu kula tahay horta fikradaas waa fikrada aad anigu shakhsi ahaan haddaan ahay Maalika Jibriil aan aad u raadinayay haddana maxay ahaydey inamo iyakuna ururka warqadan ogeysiiskana soo gaarsiiyay aad iyo aad nahay shaqo oo kaliya maaha noloshu waxa weeyaan wax badan inay ubadku isbartaan inay wax wada qaybsadaan inay is ogaadaan inay waddan ka wada yimaadeen inay dadka kale iska soo dhaweystaan qowmiyadaha kale inay iska soo dhaweystaan oo isbartaan oo isbarashada hadhow waxa ay ilmihi u sahlaysaa inuu ay isguursadaanba marka dambe oo ay marka dambe ilaa barashadu halkaas ay ka bilaamaysaa ay marka dambe isguursadaan marka dambe ay maxay ubadda ku yeeshaan marka jiilba jiil buu bedelaa waxa rajaynayaa jiilkiina bedeli doona inay noqdaan ubadkaasi xagga kale waddankii ina maxay ahayd lagu ogaado ubad dukan wax bartay inay joogaan waliba heer jaamiciya loo baahan yahay iyo kula waddankii u baahan yihiin waddankiina iyagu u baahan yahay marka baahidu waxa weeyaan ilaahun baa baahan baahdu waa ilaahay bili aadanku labada dhanba waa la baahan yahay aniguna mid aan ahay shakhsiyadayda aan ahay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa aniga oo waliba 3 dhalinyar ah oo teen age haysta fikradda aad iyo aad baan ugu bogay aad u mahadsantahay